بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عاوة هدو إلهي كرالي النقضو وحان هبفرينا هبفر أما بدقينا أما حرق لغا جريا حرق قوين ama la dhagax dhigayaa intaas oo majalladood oo kala duwanba waad ku sumadan kartaa ama ku astaysan kartaa channelkan ama muuqbaahiyahan. Si kale haddaan u iraahdo, waxaan caawa daaha ka rogaynaa, shaaca ka rogaynaa, sharaaca aan iraahdo, ama aynu shaac qaadaynaa muuqbaahiyahan gaarka ah oo sawraca lagu halmaalaa uu yahay af Soomaali. Afku waa baadisooc aadmiga kala hufa, isla markaana lagu wada xiriiro. Markaan leeyahay baadisoociisu waa afka Soomaaliga, dee ummadda kale ma quseeyo. intii af garanaysa ee aan isku oraahnahay ayaan la hadli doonaa haddii Ilaahay uu yiraahdo. Sidaa awgeed, muuqbaahiyaha kan wuxuu gaar u yahay ummadda Soomaaliyeed meel walba oo ay dunida kaga sugan yihiin. Sumad garashada loogu waqlalay sida dusha sare ku xusan waa magac, maamuus iyo milgaba leh oo tacab badan la soo geliyay, kaasoo la sii hubiyey astaan. wax walba waxay leeyihiin baadisooc, sumad iyo astaan lagu garto garasho u ah. waxaan u yeelay marka go' aan si gaar ah u hubiyey. sumad garashada marka aan magac dhabo, janaalka magaciisa waxaan ugu waqlalay waa magaca aabbahay oo la yiraahdo Xeebow. magacna wuu noqon karaa, asal ahaanse waa naanays. Xeebow waa magaca aabbahay ama naanaysta aabbahay, saaxiibkay, macallinkayga nolosha, astaanta ku lamaan oo ah xero magangelyo. waxay sugaysaa in goobtani ka caagan tahay warxumo tashiilnimo, meel ka dhac qof, been, siyaasad taban, hurin colaadeed, qab iyo qabyaalad, wax kasta oo wiiqaya bulshada hadday ahaan lahayd dhaqan iyo diinba. intaa kadib, mawduuceena caawa aan ku hibo furayno muuqbaahiyahan waxaan u gartay, maadaama uu ku suntan yahay magaca aabe, inaan ka hadlo doorka aabbuhu aadmiga u leeyahay. waxyarna aan idinka hoga tusaaleeyo. si guud, waalidku waa udubka qoyska, waana halbowlaha nolosha iyo horumarkeeda. qaranku wuxuu ka beermaa ama ka aloosmaa ama ka abuurmaa bulshada oo tarantay. sida aan taariikhdaba kusoo dhiganay, noloshu markeeda hore waxay ahayd geedi socod. qofka halka uu waaga ugu baryo ayuu ka sahan tegi jiray oo ugaar buu u bixi jiray, waa ugaarsan jiray. maalintaasoo dhan siduu ugaartu ugu jiro ayuu halka gabalku ugu dhaco ayuu god yar intuu ka qoto ayuu halkiisaa seexan jiray. subaxina uu kasii socon jiray. keli ayuu qof walba uu naftiisa uu ugaadhaa ugu samata bixin jiray inuu ku noolaado. halka markii dambe ay laba qof iyo koox ka noqdeen, taasoo sababtay in aadmigu waa lab iyo dhadig, waana halka ay noloshu ka bilaabanto.
qoysku halkaasuu kasoo bilaabmay. qoyska waxaa ka horeeya oo lagu suntaa xaas ama nin iyo marwadii. kadib ayay ubad uu dhexdooda ka beermaa, markaasay qoysku noqdaan. hooyo iyo aabbo ubad ku lamaan yihiin ayaa qoys ah. qoyskaas soo tarmay ayaa bulsho noqda. bulshadaasoo tarantay ayuu qaranku ka abuurmaa. alaaba aaraarta taxanaha sooyaalka nolosha, dhaqanka iyo diintaba waxaa inta badan lagu xusaa doorka wanaagsan ama gaarka ah ee hooyada, iyadoo aan la dafirayn kaalinta aabbuhu leeyahay. ha yeeshee hadalhayntu ama dood cilmiyeedku wuxuu saldhigtaa hooyada. hadday ahaan lahayd shiikh, hadday ahaan lahayd qoraa, hadday ahaan lahayd siyaasi, inta badan markii mowduuc la qaadaa dhigaayo ku tacalluqa ama xiriir la leh nolosha asaasigeeda iyo waalidka, had iyo gooraale waxaa lagu dul meeraystaa oo xeendhaabkeeda aan laga bixin qiimaha ay hooyadu leedahay. ma difarsani inay hooyadu muhim tahay oo ay lafdhabar tahay. ma difarsani inay sugan tahay oo niska qur-aanka iyo suubanow rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam axaadiistiisaba inuu ku sugay maqaamka ay hooyadu leedahay. ha yeeshee waxaa lagama maarmaana inaan dib isku xusuusino inuu aabbuhuna doorkaa uu qeyb ka yahay, maadaama hadalhayntu ay ku yaraatay tilmaamaha uu aabbuhu leeyahay. aniguna janaalkan aan ugu waqlalay ama muuqbaahiyahan aan ugu waqlalay magaca saaxiibkay, waxaan isiri bal in yar aada dul istaagtid oo aada qiimaha uu aabbuhu leeyahay mid iyo laba ku xustid. waan hubaayo saacado badan haddaan qaato xitaa ma koobi karo inta aniga iyo aabbahay keliyana dhex martay oo noloshayda saameynta weyn ku yeelatay. aabbuhu waa barbaariyaha, hagaha, hoga tusaaleeyaha, hanuuniyaha allah wa xanuuniyaha sababta u noqda qayimka akhlaaqda togan ee ubadka. aabbuhu waa tunka, tagoogta iyo itaalka tabantaabiya nolosha oo tabaalaha iyo baylaha qoyska ka jira. waayo kullukum mas-uulun wa kullukum mas-uulun can raciyatihi xadiis buu ahaa. qof walba mas-uuliyad gaar aha saaran. qoyskaa waxaa mas-uuliyaddiisa had iyo gooraale ay saaran tahay aabbaha. aabba la-aantii noloshu ma hana qaado. aabbuhu waa abtirkaaga, waa garashadaada qofnimo, waa halyeyga qura ee u bareeri kara halis walba siduu adiga kuu samata bixin lahaa, dhereg iyo dhigaalba. aabba la-aantii noloshu kaalin ma gasho. oo dhayliga waad ka garataa ruux waayuhu u saamixi waayey inuu ku agbarbaaro guntaha aabbihii. si kasta oo uu qofkaasi u dadaalo ama loogu dadaalo, dadaalkaa laba ah inuu qofka shaksiyadiisa ama naftiisu isagoo kor isku soo qaado oo uu yidhaahdo wax walba waad samayn kartaa, waad ku tallaabsan kartaa, waad hirgelin kartaa hibada kugu qarsoon inay soo ifbaxdo. markuu sidaa naftiisu ku dhiirigeliyo, waxaa hareeryaal ahoo lagama maarmaan ah inuu heli karo ama uu u baahan yahay qof dhabarka ka riixa, yidhaahda hadiyo gooraale anaa hareertaada taagan. si walboo qofka loogu dadaalo ama uu dadaalkaa u sameeyo, haddii aanu guntaha aabbihii ku agbarbaarin, wax badan oo nolosha ah ayuu seegay. sidaa aawadeed dhammaan waalidiintayada, intii noolna allah ha u naxariisto, intii dhimatayna allah ha u naxariisto. nolol iyo geeriba naxariista eebe waa lagama maarmaan. waa maxay aabe?
iyadoo aan markii hore qodobeeyey kaalinta aabbuhu noloshu ugu jiro iyo sida aan ugu tiirsannahay, haddana waxaa suuragal ah in loo baahan yahay waa maxay aabbo. aabbo wuu ka guda qaraweyn yahay magac qura. aabe wuu ka guda iyo qaraweyn yahay cinwaan. aabbo wuu ka guda iyo qaraweyn yahay in lagu qeexo ugxaan bacrimisa ukume ama ukumaha hooyada. ina rageed kasta wuxuu rimin karaa haweeney. aabbuhu waa qofka yagleela rajo horseeda dhowrista ubadkiisa iyo qoyskiisaba. xitaa aabbuhu wuxuu ilaahay ku ilhaamay oo ilaahay uu ku galladaystay inuu aabbe u noqon karo kuwa aan dhabarkii tagoogtiisa midna ka iman. waxaa tusaale aan usoo qaadanayaa, waxaa suuragal ah inuu calafku u saamaxay nin haliyey ah haweeney 2 ama 3 caruur ah sidata. waxaa hubaanti ah haddii aabbahaas asal ahaan uu aabbe sugan yahay inuu ubadkaas u xanaaneynayo, u barbaarinayo oo u kaalingelinayo sida kuwii uu isaga u dhalo kale. aabbuhu waa qofkaas. waxaan doonayaa inaan dul istaago kelmado yar oo aan isleeyahay mararka qaar markii aan cidlo dareemo naftaad ku sabaaleysaa. hadda ka hor waxaa igu dhacday waddankan aan ku suganahay ee aan nolosha inaan bal sidii hore aan ku noolaa si ka duwan aan u raadiyo, aan ugu soo ambabaxay 2 bilood adiga ku dhawaad 3 bilood oo waxaa jirtay aanan reerkayaga la xiriirin sababo jira awgeed. markaana may jirin aaladan iminka sida degdega ah markiiba aad 2 mar intaad farta 2 option ka doorato aad markiiba qofkii aad rabtay aad ama muuqaal u arkaysa ama aad cod ahaan u maqlayso. intaa waa ka yara adkeed. waxaan halkan kaga jiray meel tuula oo magaalada ka baxsan, anoo saluugaya intaan tuulada kasoo baxo magaalada aan imaado. waqtiga yar oo igaga baxay halkaa ayaa waxaan doorbidi jiray inaan haybiyo war toddobaadka soo socda yaa baxaya, oo dhalinyarada qofkii magaalada tagaaya intaan wax yarku ilaahay iga soo qaaday aan u dhiibaan idhaahdo halkaa ku hagaajiyo dira oo aanan reerkii heetiin xaalkiina ka warraba aanan oran. waxaaban ilaaway in codkayga in la maqlo ay dawiya baan u tahay waalidkii tacabka isoo geliyey. sidaa daraaddeed ayaan maalin isiri war dareenkaaga bal suugaan ku cabir. anigoo shaqadiina ku jira ayaan qalin iyo warqad intaan soo qaatay isdul saaray. kelmadahan ayaa kasoo baxay. wuxuu yidhi arrin iyo afeeftii, ammaan iyo madasheed, astaan iyo halkudhigeed, ayaan waliba tilmaanteed, adduun iyo waayihii aadmigu waa soo jireen. abka guud tixraaca, sinjiga asal maguuraan, aadan iyo xaawa gidina laga alkumay. allow darajaale anigiiyo galladayda wacan, geesigaad iga abuurtay dhabarkiiyo araxdiisa, amarkaaga uga beermayee addimadiisa ku fooftiri. afkaartiisa dhaqan toosin, akhlaaq igu soo barbaarshay. arwaax badane aabbahay hobalkaa aayaha leh, abwaan wanaag baahiyaha, bulshadiisa u adeegee aqoon-yahankaa waaye arag, aftidiiyo murtidiisa bilan, awowka awow isirka abtirsiiyo, aabba magacay dhaxal siiyey, ammaan gaara iyo hiddo adkeeyey dhaqankayga, asaagay uga haybsoocana, anigay ii gaartahoo dadkuba way igu gartaan. aabbe macaane abaalkaad ii gashay, abaabintaadii hufnayd, ambaqaadka tallaabo. wuxuu yidhi ambaqaadka xulasho
dumar looga arrinsado adigoo feejigan aabe hooyadaad ii astaysay awal ugub jacaylkiinii kalgacayl aniga koolkoolintaydii aaraahdayda daciifka ah aabba mudankaad leedahay eray ayaan maan odhan alif qura maan xusin abid inaan curin ma qabo aragtida gaaban kaskayga aabe adigunbaa igala weyn. kelmada yaroo waxaa ku jira ah inuu aabbahay aniga hooyaday ii xulay. waajibaadka aabbaha saaran intaanuba qoyska iyo galeelin ama aanu dhisin waxa lagama maarmaan ah. aabbuhu waa inuu xulaa hooyada xilkaa gudan karta waa tuma. inuu intuu jacayl kugu dhaco aada inan yar iska calmato aadse kala hufin talow may mudan tahay inay ubadkaaga mustaqbalkaa hooye u noqotay in kale oo aadan dhinacyo badan ka eegin oo muunadda iyo haybadda iyo quruxda uun aada naftaada ku asqayso. xulashada sidaa ma aha. dooqu waa cajiib oo qofka dooqu wuu ugu dhici karaa, ha yeeshee waa inaad adigana aragtidaada aada ku salaysaa dooqa maxaa ku hareereysan, maxaa kuu xiga, maxaa adiga waajib ku saaran. hooyada aada u astaynayso ubadkaaga inay hooyo u noqoto waa inay noqotaa hooyo kaalinteedii hooyanimo kasoo bixi karta. waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso mustaqbalka waxa dhacaya sideen ku ogaan karaa. noloshu waa sunan iyo silsilad, waa sooyaal, waad iska dhex arki kartaa haddaad wax badan akhriso ama wax badan aada dhegaysato, ama haddaad soomaali tihiin ama aan nahay aan idhaahda yaan iska kinsaarine, ama haddaan soomaali nahay waxaan aada u jecelnahay daawashadaa noo fudud intaan wax akrin lahayn. waayo waxay ugu cusub maaho markaan wax soo qoro qoraalka waad nagu dheeraysee naga soo gaabi, inta laygu yiri timaha igu yaalla iga badan. markaad wax akriso oo aada wax badan baarto waad ogaan kartaa astaamaha ama sifaha lagu garto hooyada mudan karta inay ubadkaaga hooyadood noqoto. aniga waan ku faanayaa in aabbahay waanan ku ammaanayaa, abaalna waan uga hayaa hooyo qiimo badan inuu iisoo xulay. waana waxyaabaha aabbaha looga baahan yahay inuu ubadkiisa ugu gargaaro. waa kow, inuu hooyo wanaagsan uu u dooro. waa labe, in uu magac qurux badan oo wanaagsan uu u bixiyo. waa saddex, inuu barbaarin wanaagsan iyo naxariis iyo kalgacayl uu ku kobciyo garaadka iyo jirka ubadkiisa. aniga aabbahay saddexdiiba wuu iigu hiiliyey, abaalna waan uga hayaa oo maxamed weli ayuu iigu waqlalay. hooyo wanaagsanna wuu ii xulay. intaan nolosha ka garanayana waxaan oran karaa iskuullada casharada aan kasoo qaatay iyo nolosha markaa igu geedaaneed ee aan ku noolaa ama bay-adii aan ku noolaa wixii aan kasoo miinguuriyey waxaa ka mug iyo miisaan weyn oo noloshayda kaga saameyn badan intaan aabbahay ka dhaxlay. aabbahay anigoo 7 jir ah ayuu talada guriga qeyb iga siiyey. aan xusuustaa hooyaday ayaday Aamina Jaamac Cigaal labadaba ilaahay ka raali noqday iyo isaga markay amuurta guriga qaadaa dhigayaan wuu ii yeeri jiray oo taladu qeyb iga gelin jiray. anoo saacadana jiifa ama daqiiqadana jiifa daqiiqadana soo jeeda ayuu ii oran jiray haye maxay kula tahay, anoona u bislayn heerkaa. ha yeeshee ogow walidka ubadka yar haddaanan loola dhaqmin sidii qof weyn oo mar walba la yiraahdo warkan waa cunugeer weli waxaa muu gaarayna xaggaa naga geeya, ogow qofkaas kaalin dhan oo uu lahaa ayaa la duudsiiyey. qasab ma aha isla markaa ama xaaladda markaa joogta inuu la falgalo, laakiin waxaa hubaanti ah inay wixii dib ugu soo maaxanayaan. marba marka ka dambeyso oo uu weynaado ayuu gartaa doorkii uu aabbaha ama doorkii ay hooyada ama isku soo duubo doorkii waalidka ay shalay toole ay u hibeeyeen
inuu maanta noloshiisa ku dabaqaayo. wax badan oo aan ka faa-iiday oo ay ka mid tahay sabirka badan, dulqaadka, afgaabnida, xishoodka, iyo intaasi in ka badan oo ciidda iyo acmaarkaa ah ayaan abaal uga hayaa aabbahay. waxyaabaha ugu cajiibka badnaa marna noqotay inaan ku garnaqsado waxaa ka mid ahayd hadda ka hor ayaan xaafadii ka xanaaqay anigoo yar. siday ila tahay quraacba habkii aan u jeclaa ama aan u doonayay lay siinin. markaasaa waxaa dhacday inaan xaafadii waxa allaale wixii dhagax magaalada yaala intaan soo aruursaday aan shiid harka kaga dhigin. islaa waxaa jirtay dariskeena ahayd, way igu dacweysay, aabbahay bay igu dacweysay. wixii maanta aan dhigay oo dhan ayay u sheegtay. markaasuu wuxuu ku yidhi waad mahadsan tahay, edadarada intaa la egno kuma ogeyn, laakiin caawan waajibkiisa marina. wuu isoo kaxeeyey, wuxuu yidhi walaalada macsalaamey, ninka dib dambe iskuma arkaysaan, iska saamaxa. mindina hore usoo qaado yidhi waa ku gowracaa. sidii buu igu soo kaxeeyey meelaan xaafadda markaa kasii fogeyn oo aan kubadda ku ciyaari jirin ayuu i keenay. wuxuu igu yidhi maxamedow, ma doonaysaa inaad reerkii ku noqoto oo aada walaaladaa ku noqoto oo aada ifka nabad kusii joogto, oo ma isfuranaysaa? fursad aan ku siiye. markaasaan yidhi haa aabbo waa isfurana. maxaa isku furtaa? markaasuu yidhi run isku furo. haddaad runta ii sheegto caawa waan ku badbaadinayaa, xaafadii baad u noqonaysaa, cidlo lama hadlaysaa, u socoto qubayso, cashadaada cun, seexo. hagaag baan ii. markaasuu yidhi maxaa ka jira? waxay ii sheegtay id. markaasaan waagi markuu bariyey ilaa xilligaa aan ku sugannahay intii u dhaxaysay ayaan mid mid ugu sheegay. wixii dheeraad ahoo maamada ay ku darteen waxaa yidhi intaa beri baan ka ahay, aanu shaqo kuma lahayn, laakiin intaan ay sheegto oo kale oo dhan way jirtaa. waad garan kartaan dhaqan iyo akhlaaq iyo diin intaba kaalinta ay runta kaga jirto. waxaan ku dhib mudanayaba ha ahaato, dacarta ha ka qaraar badnaato, waxaan adigaba kugu weynaayo ha ahaato, oo saaxiibtinimadaada iyo walaalnimadaada aan ku weynaayo, markay runta timaado iyo beenta 99.9% runtaan u bareedaa. habeenkaa runtii sidaan isugu furtay ayaan qabaa ilaa qiyaamahan inaan isku furan karo. way dhici kartaa runtu way qaraar tahay inaad dad badan runtii isku weysaan. ha yeeshee waan u bareeri jiray. barbaar baan ahay bisil, hanaqaadkayga suugaantay ka mid aheed anaa isku tijaabsanayay. barbaar baan ahay bisil, barashada cilmiga jecel, beleda necab oo cambaareeya, beenta ka bayro u bareero runta. haddaan idhaahdo caawo qodob qodobaan u dul istaagaa intaan wax kasoo minguuriyey, waxaa laga yaabaa inuu waagu nagu bariyo. idinkana ma jecladiin fideoga in laydinku dheereeyo 3 daqiiqo 2 daqiiqo, waxaad markiiba intaad eegtaan aad kasii gudubtaan aad jeceshihiin. dooqiinaan idinla qaadanaynaa, intaa waxba kama sii dheereyn doono. khayr fara badanaan idin rajeynayaa. waxaan idinkaga tegayaa kulankan kulankiisa xigay iyo inagoo isku xiisa qabna. wixii talooyin iyo tusaale ah waxaad noogu reebi kartaan qaybta warcelinta hadii ilaahay ka raali noqdo. sidoo kale waxaan idin siin doonaa whatsapp gaar ah oo aad wixii sheekooyin ah ama qisooyin ah oo aad haysaan aada noogu soo gudbin kartaan, ama wixii talo iyo tusaale ah intuu ilaahay naga garansiiyo arrin idinku cakaran hadduu jiro si aan idinla qaadaa dhigno. keligii ma aha, waxaa igala shaqeeyay channelka waa dhowr qof. daaha gadaashiisa dad badanaa ku jira. insha allah khayr fara badanaan idin rajeynayaa. xagga farsamada
saaxiibkay mukhtaar xaaji oo la-aantii aanay waxba qabsoomi lahayn. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.